السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام والله ودنا فيكس soo dhawaada. Waxaan filayaa inaa caafimaad qabtaan alxamdulilah anoo idin caafimaad qaba. Halkan insha Allah waxaan ku duubaynaa cashirkii ahaa sida bangi wire transferka loogu xiro mastercard-kaaga. In badan ay walaalaha soo codsanayeen insha Allah waqtiga nagu yaraa haddaan insha Allah jaan soo helnay haddaan duubaynaa cashirka inta ku duubaynaa. Haddii aad fahmi weyso isku day inaad ku ceshato cashirka dib ugu laabato meelihii kugu adkaada aad dib ugu laabatid markaad waxa habeenaysid. Mid kale waxa isku daydaa muhiimadda ugu weyn ah in qoraalka bangi Swift korkaaga sida uu qoran yahay aad u geliso si oo macnaha wax walba kugu saxmaan. Qofkii fahmi waayaan insha Allah ay la soo xiriiro cashiro kale taa oo waxa jiraan aan ka duubnay FX Premier sida iskaga diiwaan geliyo sida passwordka loo bedelo sida MT4 passwordkiisa loo bedesho wax walba insha Allah wixii igu adkaadana waxaan diyaarunahay inaan cashiro ka soo duubno idinkana caawino. Qofkii aan furan karin real account waxaan diyaarunahay inaan la furno anagoo timekeena qaaligaas siinayno qofkaas walaalkay ku caawinayno insha Allah. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan soo caawin doono qof kasta oo bangi wire transfer raba inuu uu sameystana cashirkan oo in badan wax badan ka caawin doono la sii wadaag qofkii u baahan insha Allah. Waxaa walaalaha nagu cusub YouTube-ka naga daawanaya waxaan leeyahay waxaana la dhahaa wadani FX. waxaan leenahay Telegram ilaa 1200 qof oo walaalaha aan ku midoonay oo aan isku cilmiga meesha ku kala faa'iideysano experience-ga aan suuqa u leeyahay aan meesha ugu faa'iideeyo. haddaad ka mid ahayn wadani FX ku qor 1200 qof ay ku soo bixisa ku soo biir YouTube-ka subscribe share like and share and comment si walaalo kale ku dhiban ugu gaaro. haddii cashirkeena hore aan u galno waxaan tagi doonaa insha Allah akoonkeena. waxaan filayaa inaad aragtaan akoonkii aan cashir ku sharixi rabnay ma loo garaysnayn oo soo loo gareey. akoonkan hadda aan cashir ku qaadanayna waa kii challenge aan kaga jiray. haddana trade kale oo ka furan ma sha Allah faa'iido fiican oo wadaa. waa aragtaan hadda almost $200 ku dhow yahay. faa'iido fiican hadda u socoto insha Allah challenge waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysano. asxaabtii la socotay waa challenge ahaa $100 loo bedelay $1,000 insha Allah muddo 5 isbuuc ah. haddana meel fiican u marayaa maantana faa'iidaan caadi ah u socoto insha Allah. xogtiisana groupka idin kula soo wadaagi doonaa. haddii hore aan u sii galno xiisadeena markii aad saan u soo furto waxaad furaysaa qaybta website-ka oo FX Premier laga soo galo. qaybtaas markaad furtid waxaad sameynaysaa waxaad ku dhufanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay profile. calaamadda markasta aan idin muujinayo la socda qoraalka saas aan xariiqayo meesha ay ku qoran tahay profile ay ku dhufanaysaa. markii profile-ka aan ku dhufano haddaan profile taabano waxayna geynaysaa page kale oo cusub inoo furi doontaa insha Allah haddii la yiraahdo. waa aragtaan page-ka inoo soo bandhigtay. page-ka markay ku geyso profile-ka waxaad taabanaysaa your bank information ku qoran tahay xogta bangigaaga. waa qaybta u dambeyso agreement ka dambeyso waa agreement mid ka horeyso oo qoraalkaas oo aan calaamadda go'aaminta idin gelinayo. waxaan filayaa inaad si fiican aydan u aragtaan. meeshaas aan ku dhufan doonaa haddana steps-ka la soco video wuu duumayaa oo ku soo ceshan kartaa mar walba. waa aragtaan xogtii meeshii la gelin lahaa. xogta meeshan la gelinayo xaggeen ka keeni doonaa waan isla arki doonaa haddii la yiraahdo. ayadana waa xogta ku qoran bangi statement-iga. waxaan ka wadaa Swift korka xogta ku qoran ayaa inta gelin doonaa sida u qoran tahay insha Allah u buuxin doonaa. kadib markaas kadib ayaan submit dhihi doonaa haddii la yiraahdo. xogtii ayadoo noo diyaarsan haddaan tagno xogtii haddaan soo qaadano xogtii waatana waxaan filayaa inaa ayadan aragtaan
xogtii noo diyaarsan waatana qaabkii loo gelgelin lahaa waxaas oo dhan ayaan isla fiirinaynaa insha allah. saad wada aragtaan waa Swift core-kii waxaan samayn doonaa waan buuxinaynaa si ay qofku ugu faa'iideysto asna ugu galgashto hadhowto. hadda anaga gelgelin doono waxaan isticmaali doonaa Swift core meesha ku qoran tahay BBSM SOSM taas waa yaan isticmaali doonaa. waxaan kaloo isticmaali doonaa account name-ka, waxaan kaloo isticmaali doonaa account number-ka, waxaan kaloo isticmaali doonaa address-ka, waxaan kaloo isticmaali doonaa bangiga magaciisa primary bangi aan si toos u gelin doonaa. waxaan kaloo isticmaali doonaa IBAN number wax la dhaho oo halkaas noogu qoran bangiga number magaciisa sidoo kale taasna waan isticmaali doonaa asaa sheegay. haddii aan isticmaalno oo gelgelino oo isla fiirino haddii ilaahay yiraahdo xogta inta ku qoran waxaan rabnaa inaan gelino meelihii loogu talagalay. halkan bangi name ku qoran tahay waxaan gelinaynaa bangiga magaciisa. waxaa laga rabaa siday u qoran tahay inaad u qortid Premier Bank. amad guduhu soo saaray abu diidan waa aragtaa iska sax right click dheh dooro Premier Bank inuu ku saxan yahay iska fiiri. ku dadaal inaad wax sax ah gelisid si hadhowto waxaan kugu soo laaban. qaybta labaad waxaan gelinaynaa banki address. banki address-ka away asna meeshuu ku qoran yahay waan tegaynaa waan isla fiirinaynaa aw banki address aan isla raadino waa kana banki address-ka calaamadeena banki address-ka waa kana address meesha ku qoran tahay maaragtaan numberkaas dheer aad gelinaysaa ama Hargeysa ka qaado ama Muqdisho ka qaado qof walba uu leeyahay qaybtaas banki address meesha ku qoran tahay addresska bangiga waxaa gelinaysaa numberkaas magacaas meeshaas ku qoran ee ku qoran tahay Diana Building Khalifa Street Abu Dhabi United States Arab. marka haddii qofka Hargeysa uu joogo waxaa laga yaabaa inay wax yar ka bedelan yahay laakiin muhiimadda waxaa waaye address meesha ku qoran tahay addresskaas oo bangiga addresskiisa ayaa gelin doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. sida waxaan u gelinaynaa sida uu u qoran yahay Diana Building aan isku dayno aan gelino Diana Building su u qoran yahay u gelinaynaa insha Allah haddii la yiraahdo Diana Building comma waxa ka tagays maraa comma dot wixii meesha ku yaalo qor ha ka tagin Khalifa Street Khalifa Street Khalifa Street Abu Dhabi comma Abu Dhabi comma United Arab Emirates United Arab Emirates sorry United Arab Emirates دام فيرنا United Arab Emirates ولا صحيحين قيبت كل حكاية أيضا وحواي بنجي أكون نمبر وبنجي جاي أكون نمبر كيسا جلسة لو والنمبر كهالكاس كو قرن هدي أي انتصو نمبر كهالكاس كو قرن أي جلسة بنجي أكون نمبر
meeshaas ku qoraya numberka meeshaan ay qarsan hadda ayaa gelin doontaa insha Allah bangi account number meesha ku qoran tahay haddaan ka sii socono oo bangi account number ka gelisid inta waxa gelinaysaa Swift code number Swift code number ka meesha ku qoran yahay Swift code bangi Swift code isna haddaan tagno si aan idin tuso waa kana waa Swift code number kaas meesha ku qoran waxa gelinaysaa numberkaas meeshaas ku qoran Swift code waxa soo aragtaan meeshaas haddaan si fiican u saxno waxa ku qoran meelo badan Swift code badan waxaan isticmaalaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo kan meeshaan ku qoran Swift code BBSM SOSM inta badan way isleeyihiin Hargeysa Muqdisho inta badan kan way ka sameeyeen BBSM was ay gelinaysaa waa Swift code kale inta ku qoran yahay mid kale inta ku qoran aw midkii kale taasna arkay waa kana laakiin waxa soo dhan anaga ma isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa kan ka BBSM kaas isticmaal doonaa haddii Ilaahay yiraahdo aan aad ku calaamadeeyay iyo iskaga dhex khaldamin insha Allah waxaan gelin doontaa meeshaas halkaas ay ku qoran tahay bangi Swift code kaas gelinaysaa kii hadda BBMS ka daaban gelinaba hadda si macnaha daan gelino PPS waa farta weyne PPSM SOSM SOSM halkaas taas u gelinaysaa kan bangi IBAN ga asna waa hadda intu soo isna intuu noo yaala bangi IBAN waa kana waxaan filayaa in aragtaan IBAN no ku qoran bangi IBAN number IBAN number halkaas ku qoran tahay numberkan dheer ay waxa u gelin doontaa si tartiib ah haddii kan hadda aan gelino oo ila aragtaan haddii hadda kan aan gelino oo ila aragtaan aan soo fiiriyo E900 IE 900 shan eber shan eber sideed eber toban konton iyo lix koob labo saddex afar shan konton iyo lix koob labo saddex afar shan soddon iyo afar waa aragtaan saan u taxadirayo oo aan numberkaas kaga ilaalinayo haddii numberkaas uu number ka mid ah kaa khaldamo waxba kuuma hagaagi doonaan uuna lagugu soo celin doonaa gmailkaaga lagugu diri doonaa maxaan ku dhahay email kaas oo ay kuleeyihiin waxbaa kaa khaldan meeshaan banki country waddankaa dooranaysaa aad joogtid Soomaaliya inta waxaa gelinaysaa passwordka inta gelinaya waa kee waxaa gelin doontaa passwordka ah passwordka aad kusoo gelaysay website-ka passwordka aad website kusoo gelaysaa inta gelin doontaa kadib waxaa dhihi doontaa submit inta submit dhihin ka hor waxaan hal mar dib ugu laabo isha ku celi ma saxan yahay magaca bangi adresska ma kaa saxan yahay
bangi account number ka makuu saxan yahay maxaan ku dhahaa bangi swift code ka makuu saxan yahay bangi ibank ka ma saxan yahay uu country ma dooratay kadib waxaa gelinaysaa passwordkaaga markaa gelisid kadib submit aa leedahay submit markaa dhahdid saas uu ku baxay waxayna kusoo dirayaan gmailkaas insha allahu akhriso gmailka markay kusoo diraan waxaa lagu sheegaya xogtii in lagu aqbalay in wax kaa khaldan yahay dheg markii lagu aqbalo oo diyaarsiya waxaaga waxaana ogaataa lacagta koowaad aad la baxdo waxay kuugu dhici doontaa mastercardkaaga marka labaad ayaa insha allahu ay kuugu dhici doontaa hadduu ilaa yidhaahdo bangi wire transferkaaga taasna haddaan hadda aan isla fiirino oon tagno si ay u fahantaan waxaan filayaa inaad fahanteen qaabka loo gelgeliyo waxaan tegi doonaa insha allahu qaybta kale ساعدين تصو waxaad tagaysaa withdraw meesha ku qoran tahay waxaad ku dhufanaysaa kadib waxaad kasii dooranaysaa withdraw from MT4 oo markaa rabtid inaad lacag kala baxin tusaale haddaan gelino inta haddaan dhahno lacagta ugu yar lala bixi karana waa $100 awal waxaa aan jirta 50 iyo 35 iyo lala bixi jiray hadda laakiin waa la joojiyay 100 ugu yar passwordka inta gelinaysaa passwordka aad kusoo gashay website-ka gelinaysaa hadduu ilaa yidhaahdo kadib waxaan leenahay confirm si aan u aragno waxa noo furan hadda iyo waxa aan noo furnayn saan wada aragno hadda waxaa noo furan oo keliya hal meel ayaan wax kula bixi karnaa akoonkan uma furno bangi wire transfer waxaan kula bixi karnaa oo keliya halkaas qaab ayada ayaa active noo ah sidaa wada aragtaan bangi wire aaway waa kana bangi wire transfer active na nooma aha markii uu hadhowto active ku noqdo ayaa labadooda ku soo bixi doono bangi wire ka click ku siinaysaa haddii hadda aan ku dhufano wuxuu ku leeyahay Soomaali wuxuu ku leeyahay user must be first to withdraw via card with their respective fund amounts lacagta ugu horeyso waa inuu kula baxaa mastercardkiisa kadib markuu mastercard kula baxo tookada dambe ayuu kula bixi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo bangi wire transfer kan bangi wire transfer akoonkan uma furneen akoon kale oo bangi wire transfer u furan yahay ayaan isna insha allah idin tusi doonaa si uu qaadanayo uuna u soo celinayn waxaan filayaa kan inaa fahanteen akoonkan aan tegi doonaa asna aan isla fiirino waxaa ku ogaanaysaa bangi wire transferka markuu ku leeyahay meeshaan withdraw ay ku qoran tahay markaad taabatid withdraw hadda markaan aan click ku siino oo aragtaan waxaa kusoo baxaya fees and procedures withdraw from MT4 withdraw history MT4 withdraw history malaha international bangi wire transfer hadhow markii lagu active gareeyo oo uu ku yeesho bangi wire transferka halkaana waxay kaaga soo muuqan doontaa fees and procedures midka ku xigta waxay noqon doontaa international bangi wire transfer waxaan igu tusi doonaa akoon kaleeto oo leh ayaan insha Allah soo kicinayaa intuu soo kacayo aan dul qaadano asaa idin ku tusi doonaa haddii ilaa yiraahdo laakiin waxaa ku ogaanaysaa aan dhahay halkaana uu ka soo muuqan doonaa haddii ilaa yiraahdo insha Allah akoon kale aan tagno khadka iska yar culus hadduu noo soo kacay akoonkan uu leeyahay maxaan ku garanaynaa inuu leeyahay marka bangi wire transfer waxaa ku dhufanaysaa meeshaas withdraw ay ku qoran tahay daadina calaamadeeyo withdraw meesha ku qoran tahay click ku siinayna markaan click ku siino maxaa idin dhaadaayato akoonka markuu uu leeyahay bangi wire transfer waxa ku soo baxayso sidaan oo kaleeto inta maxaa kaaga soo baxay international wire transfer waa bangi wire transferka waxaa loo yaqaanaa international wire transfer maxaa u horeeyo fees and procedures kaas kii kaleeto ma lahayn international bank wire transfer marka akoonka international bank wire transfer haddaa aragtid akoonkaaga waa active wuu ku leeyahay asaan lacagta kula bixi kartaa
qaabka aan kula bixayno haddii aan isla fiirino ayadana qaabka aan kula bixayno haddaan isla fiirino inuu active noo noqday in kaleeto adaayta markii akoonka kaleeto lacagta aan ka bixinaynay active muuna ahayn waa ogeedeen hadda waxaan ku dhufanaynaa asaga international wire transferkaan ku dhufanaynaa waa kana xogtii oo dhammaystiran buu inta noo keenay wixii oo dhan way buuxsan yihiin waa wixii adaayta akoonka aan ku buuxinaynay waxaad gelinaysaa oo keliya lacagta aad dalbanaysid haddii aan dhahno waxaan rabnaa $100 lacagta ugu yar lala bixi karan waxaan dhahnaa $100 kadib ayaa inta passwordka aad gelinaysaa inta waxaad ku qoranaysaa waxyaaba aad ku soo xasuusinaysid waxaan la baxay $100 camal inta waxaad gelinaysaa passwordkaaga kadib waxaa leedahay preview wuxuu ku geyn doonaa page kaleeto muxuuna geeyey page kale ma hubtaa inaan lacagtaan la bixis hayaan leenaha confirm inta waxaa ku qoran 3 beri ilaa 5 beri oo full business day wuxuu kaa maqnaanaysaa lacagtaas 3 beri oo ugu yaraan ilaa 5 beri inta badan waxay kusoo diraan 3 beri ay kusoo diraan marmar 4 beri ay qaadataa marka waxaan filayaa ayadan inaad fahanteen qaabka loola baxo saasaa loola baxaa insha Allah wax walba oo ku saabsan videogan ku sheegnay hadduu Ilaahay yiraahdo si tartiib ah ugu cesho video ku cesho waxa fahmaysaa insha Allah igu soo weydiin group Telegramka ana insha Allah kaaga jawaab doono oo maasantiin ka faa'iideysi wacan walaalaha kaleeto aan fahansineen la share garay insha Allah codkayga iska yara xabeebsan hargaba ay soo yaraayo iska dulqaata kan raalahaada waxaan rajeynayaa caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.